xafiiska horumarinta xoolo-dhaqatada ee dowladda deegaanka Soomaalida ayaa 20 gaari oo calafka xoolaha u raray gobolka City. Wasiir ku-xigeenka xafiiska horumarinta xoolo-dhaqatada ee dowladda deegaanka Soomaalida Dr. Maxamed Gacal xubno ka socday guddiga joogtada ee golaha xildhibaanada ee deegaanka ayaa magaalada Gadoy ka sugootiyay calafkan xoolaha ah oo uu xafiiska horumarinta xoolo-dhaqatada ee dowladda deegaanka Soomaalida ugu talagalay in bulshada abaartu saameysay ee gobolka City ay kaga gaashaamato abaarta. Waxaan maanta ku sugannahay beeraha karinka oo ka tirsan degmada Gadoy ee gobolka Shabeelle. sidaas la mid ah waxaa soo maray calafka beeraha calafka xoolaha loogu talagalay iyaguna degmada beer caana ku yaala iyo kuwa galbeedka Gadoy. runtii waxaan soo aragnay calafka xoolaha oo 20 gaari oo isjiida loo diyaariyay xukuumaduna ay ugu talagashay inay kaga jawaabto abaaraha dhici kara maadaama oo maxaan ku dhahday abaarihii soo noqonaya deegaanka ay diyaar garow xukuumaddu ay ka samaysay diyaar garowga ay xukuumaddu samaysay diyaar garowgii baanu ku aragnay maxaan ku dhahaa beerihii calafka xoolaha ee diyaarisay xukuumadda dowladda deegaanka Soomaalida tii oo la rarayo qaar ay maartay beerihii qaar la jarayo jaritaanka ay ku socdaan qaybna la diyaarinayo qayb hadda uun maxaan ku dhahaa la wadwado iyada laftigeeda maxana dhulkii iyo la nadiifintiisii iyo la wado taasoo islaana waxay wax ka tari doontaa meelaha deegaankeena aan ka soo roobowgi meelaha uu ka daayo meelaha uu ka diinba hadda galbeedka City oo kale gobolka City in maartay baabuurta calafka xoolaha loo raro waa guul weyn oo runtii maartay deegaanka u soo heetay